بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن دمان ومضى الصوماليات جوب كستا يجور كستا جوكتان وبرنامج كان يفتيمين تحقيقيك يا أرين مرجله مصيبة وين يا أرين لجن حق ومضى الصوماليات كسو كردي ماني بماني كقدم بيس ومضى الصوماليات دولة نمدودي قرن نمدودي يشرف كودي قد مدوب وكسي دعيا ما تدقمدي محاس وحكد عضي لما أرج iyo lama maqal iyo laga masheekayaan halka waxa ku shahiiday oo ku go'ay ciidankii Soomaaliyeed fooda la istaray degmadiina waxa la wareegay al-shabaab Xasan Munaafiq ninkii loo rajiray Xasan Buldaanana dhow iyo 10 shaarlana wuxuu u baxay meel cunto lagu qaybinayo barnaamijkaas aan isdul taagaynaa masiibada halka ka dhacday ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee waxa la weeye loogu tala galay inay dalka iyo dadka difaacaan oo waxa weeye gadal lagu sii wado iyo Xasan Munaafiq kadaha iyo Xasan munaafiqnimadiisa Abdullah ibn Salool hadaad maqasheen Abdullah ibn Salool ka Soomaalidu waa Xasan Munaafiq nifaaqa iyo dulinimada iyo xaasidnimada iyo munaafiqnimada hadaad rabtid inaad artiyado iyo qofa Xasan Munaafiq sida weey barnaamijkaas asuul taagan ay musiibada dhacday waxaan ka codsanayaa barnaamijku dug soo gaaraya si shargalisid hadii salaadi ku joogtana badhayna gal loo soo tuko hadii kale nabiga ku salli Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad magaaladii maxaas loo rajiray al-shabaab baa la wareegay maanta halka fooda la isku daray ciidan Soomaaliyeed oo tiro badan baa lagu waayay saraakiil ugu horeeyay nin liyaado Abuukar Jimcaale miciyeyste oo kamid ahaa saraakiishii ummadda Soomaaliyeed u soo baxday oo maamulka galmudug ka tirsanaa oo maxaas ka dagaalamayay ninkaasi maanta halkaas ku baxay ilaahay ha u naxariistaan leenahay sarkaal kale oo isagana la yiraahdo magaciisa Maxamed Shidane oo isaguna kamid ahaa ciidamadii galmudug waxa weeye madaxweyne qoorqoor ka diray isaguna halkaas ku shahiiday ilaahay ha u naxariisto baan leenahay degmadii maxaas waa la wareegay ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee loogu tala galay dalkan iyo dadka inay difaacaan oo waxa weeye maanta kale lagu baxsan lahaa horaan idinku sheegay Xasan Munaafiq ajandaha koobaad ee waxa weeye ninka loo soo diray oo cadawga shisheeye u soo diray waa inuu ciidanka Soomaaliyeed tirtiro maalinkii madaxweynaha laga dhigay eegay ilaa isagu madaxweyne iskama dhigine waa laga dhigay dadkii waxa weeye madaxweynaha ka dhigay ee ajnabiga ahaa ee waxa weeye horgalada watay ee waxa weeye Xasan Munaafiq iyo kuwa la miciisa iyo Saciid Hulumbe iyo maalinkii farmaajo la isugu tagay ujeedada koowaad waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed in aan la arag wax ciidan Soomaaliyeed la yiraahdo haba yaraatee 30,000 ee ciidanka farmaajo iyo dawladii maamulkii iyo xukuumadii nabad iyo nolol waxay ugu tala gashay 5 sano 30,000 marka la dhameystiro shanta dambana in waxa weeye 60 kale lagu daro shanta kalena in ilaa 45 lagu daro 75,000 oo ciidan maalinkeenu gacanta ku dhignana wax la yiraahdo ajnabi inaanu dalka joogin si aan taasi u dhicin wax la ciidanka tirtir baabi wax Allah iyo ciidan gorgor iyo harimcad iyo darab iyo duufaan iyo shabeel la oran jiray eega xitaa kuwa la yiraahdo madfac baa jiray madfac ciidamada madaaficda la yiraahdo madfac la yiraahdo meeshay galaan tirtiranta oo loogu tala galay inay dalka iyo dadka waxa weeye wixii aaga soo galay dukum ka dhigaan kuwaana afka wala qabtayba intii kalena eegay waxa laga dhigay makaan baabay Xasan Munaafiq oo ciidankii Soomaaliyeed sida u tirtiray oo sida u baabiyay maanta Kismaayo iyo Gado iyo Garbaharey iyo waxa weeye Luuq iyo Balad Xaawo ayuu shacabkii madaafiic la dhacaya nacaada qaata ah oo horgola oo channel ya Cabdi Channel la yiraahdo ayaa waxa weeye wuxuu joogaa Balad Xaawo duleedkeeda dambe madaafiic baa la dhacaya shacabkii reer Balad Xaawo dhaawaca iyo guryaha dumay ilaa shalay hadaad aragtid sawirada iyo dadka waxa ku dhacaya istaacib u dhimanaysa hoobiya loo qaybiyay markii magaaladii laga saaray sidii waxa weeye ay duureedkii baa marba inta buur la soo galo madaafiic dadkii la dhacaya ninka sida yeelaya ee dadka sida u baabiinaya ee Balad Xaawo madaafiicda la dhacaya ee maxaas maanta gacanta laga dhigay oo saraakiishii Soomaaliyeed ku go'day
waxa halka meyd iyo dhaawac iyo maxaas ilaahay buu ku keenaya tarab iyo tandhaaf weeye magaaladina nimankii al-shabaab ahaa qabsaday cali dheera marro mikrofoonkiisa qabsanaya cali dheera Soomaalinimo uga dhow wallaahi billaahi tallaahi xasan munaafiq iyo cali dheere waxa weeye cali dheera Soomaalinimo u dhow beerna xaakuma yaal insaan maaha maanta wuxuu u dhoofay Ethiopia Yemen cunno lagu qaybinayo horta intaanan idin galin meesha uu u dhoofay maanta ilaa halkaas laamiga ku dhufto halkaas laba indhood ku leeyahay wuxuu u dhoofay intaanan idin galin ninka maanta waxa weeye garbaar iyo barad xaw ciidanka u diraya ciidankii dhalinyaradii Soomaaliyeed iyo deegaanadiina waxa weeye al-shabaab la wareegeen shalay sidan uu barooranay maantana waa kan isagii waa isturjumaya fiidiyowga hoosana waa isaga kan sarana waa kan uu maanta ciidanka waxa weeye uu ku wada garbaar iyo barad xaw diyaaradaha ku rarayo wax yar la dhigta مدرين ما بدي أكرته ما بدي أكرته شلي بانتري شلي أنتري قدم ما محوها ما طول الحارة دقنتها بس العدو كانوا دقين هاي واي شباب كدقن لما هذا بلاوي يا قدم ما محوها ما طول الحارة دقنتها بس العدو كانوا دقين هاي وشلي شباب كدقن لما دريرات دك إني عبوريان أنت كداب والحاجة جاي هو كلا صومالي كدر أنت كقاعد حاجة جاي ورباه إلى يقعد مشكلة دي لو نسينا وحكي قبطان صومال مشين وقت إنتان مالك سوار ديك بحان لكن هو قال حمو إمام الحمو ورحي لوض أي لهاين ودارتين وتجناين آذين ورحكة لو آذين فار أنا بس وايا دت كان فرتك وشلي فيديو هو سوا شلي فيديو قصرنا وعيدا ما أنت يشلي يضرهد وهو يبرد حاول كسوده ودتك هو بيها لدعية أفكيس يديس اسمه مقلان إيمان كل أي هاي وح الله عليه وح أركان متشرتو إيجي محشوده سني وصاحرتي إيجي إيمان لأنت وحلم بركة وقدم إيمان لأنت لمبر وان بوقلي قالت مركان كبعدي إنه قرحان يعني مرة يقرحان وقبيالة مرة يقرحان وهوية مركان لها ضيا هوية مرة يقرحان مركينا صدصنا يقاط مقدشة لوك الجور فيديو يدوشي سارن إيجي وكان ما توعيدك ودريو كان هو سنة ويسقى وشلي هذي إنا لله وإنا إليه راجعون مركلا يعني وقرحين ذكر يعني قرحين ذكر قفك بن آدم كان درجة الغلا ما تدري رأيه كسيرته أو كجرس الغلا ما تدري درجة تدخل الدرن عنا وحنا كما هالله درجة قفك الغلا ما تدري أريا عناها لما قطيتي أريا مريك عين أرشلي مريك عين أريا مريك عين ذاتك هنوك عين وشلي ما أنتنا عيدا كي الصوماليات برد حاو وضع ضد مساكين شعبة وحباء أنجيسن قريو هودي تشوكا ديباتا أنقبين بل هديجي حبات أن أباهنين أباهن بوندوين إن لورد الصو جدا محيو باهنت جدا ما توحي أباهنتها إن بوندوين كيسيات برنود سيالله ونحرستي إيه كدومي إيه داراتكو قادين إن لورد الصو إنو حوي إن سكولا لورد الصو إن اسبتال لورد الصو ودوين لو سميو جدا waxay u baahan tahay horumar bay u baahan tahay xabad uma baahna ciidanka aad ku sii guraysid barad xaawo iyo hoobiyaha shacabka masaakiinta la dhacayo eegay maxaas u geen weyday maxaas oo 2009kii al-shabaab iyo lagu kala falaastay baladeegay oo lagu kala baxay oo sunna wal jamaa 2009kii ay gacanta ku dhigtay maanta maxaas waxa la wareegay al-shabaab cid hadal haysa ma aragteen wali cid ka hadlaysa ma aragteen saraakiisha maxamed shidana iyo miciyesta iyo ragii waxa weeye meesha ku go'ay iyo war miyadu haysan saacad wax kaga fadhidaa gaday kaga fadhidaa gado ariga gadaan qabaha cabdijanan ay qabaha gado jananka qabaha fartaaga laba nin oo haamaana oo horgola oo tuuga eegay fartaaga iyo janan baa been u sheegayo rasaasta iyo hubkii uu ku guraya maxaasna wala la wareeg hadaba xasan munaafiq xagu jira taas isweydiin mudan xasan munaafiq wuxuu jiraa shirka dhacay Ethiopia oo laga hadlayo cuntada ileen hadii
tuka waxa la tuko goor wax garataa sii marka laba sheegto xunsha la yiri xunshay goor ma wax garataa waxay tin marka laba dhagax dhaafto midna igu dhaco marka sax dareema isagu meel cunno laga hadlayo ma maqlayba eegay dhagtaaba ma ku soo dhacday waxba la liqaya waa taagan shirka waxa loo diray oo caalamku u soo disay Morocco iyo ka qayb galay ilaa beerka beeshriyaado ee wadankan Nepal iyo ba ka qayb galay Cuba iyo Comoros iyo ba ka qayb galay waxay u dirsadeen wasiirka beeraha Morocco iyo wasiirka beeraha qaar baa waxay soo direen marwada koobaad naagta madaxweynuhu qabo Nepal iyo islaantii madaxweynuhu qabay baa timi iyo baa Morocco mid ay tahay wasiirka beeraha ay agaasimeyaan iyo wasiir dawlad loo diray madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed ku magacaawna magacaaba hadaa maqashid waa Xasan Munaafiq madaxweynaha uu noqdo isagii baa dhex taagan xagu eegaya waa marwadii koobaad Nepal baa fadhida xagu eegay wasiir dawlihi beeraleyda waxa way wasiir dawlihi beeraha Morocco baa fadhiya xagu eeg Cuba iyo agaasimay islaamaha loo soo diray meesha akuwa sawirada arkaysan way sawirka hortiina yaalo way Xasan Munaafiq waa taagan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed baa leeyahay wasiir dawladda beeraha Morocco maraya islaanta waxa weeye marwada koowaad ee Nepal baa maraysa madaxweynayaashu naagihii ay qabeen bay soo direen isagina waa taagan laana meesha cunna laga hadlaya hadduu cunno maqlaba iimaanba maleba laba indhoodba maleba sintugu biyaha kama daadiyo ma maqlishita qofka sintugu biyaha kama daadiyo dhururidu kama dhacdo dhururidu wallahi uga dhicin ciidankii Soomaaliyeedna maxaasna maanta wataa maxaa hooyo ku goblantay maxaa ciyaal ku agoomoobay baladeegi maxaa gabadh asay qaaday ciidankii Soomaaliyeedna gidaa loo wadaa gido barad xaawana hoobiya la dhacaya nig fartaag iyo janan baa hoobiya la dhacaya Xasan Munaafiq bay lacag ka qaateen inay mareexaan xasuuqaan oo laayaan oo baabi'iyaan Axmed Madoobe Kismaayo joogay baa u tagtaan maxaa yaala barad xaawo maxaa yaala fartaag iyo jananow barad xaawo maxaa yaala dad masaakiin oo shacab baa joogay hadaad Axmed Madoobe doonaysaan Axmed Madoobe doon ma aha dhiiga mareexaan iyo maatada mareexaan baa doonaysaan saa u leysaan Axmed Madoobe wuxuu joogay Kismaayo rag hadaatiin ma u tagtaan maalin walba uu si ciidan buu geeyaa gamba laga dhigaa ciidan buu geeyaa gamba laga dhigaa maanta maxay sameynaa bali war mareexaan kani ma ogole bali Xasan Sheekh way ka soo horjeedaan balad xaawo dhulka la dhigo saaka nimankii dalxe reer Maxamed reer Xasankii urmudigtii wax alla ay wixii balad xaawo joogay eeg mareexaan agta la mari hoobiya ku socda maxaasna wataa horta ninka Soomaaliya inta Xasan Munaafiq jooga rajo ka qabow eegay dal xoreey dal xaraasho way iimaan laawo way Xasan Buldaanana way munaafaqadii qof way wax afarta qabliya albaabada barakatu halka laamiga ku dhufto laba indhood halka kule way oo taxsiinina dadkaas dadkii laga xasuuqay magaalada barada xaawana intii ku dhimatayna Allahu naxariisto intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha u boogadhayo baladeegi laakiin mareexaanow tala idila gudboon janan iyo fartaag dadkii shacabkiini iyo ummadiina hoobiya la dhacaan iduna daawataan mareexaanow tala idila gudboon haddii kalena deesh dhiiba nimankani Axmed Madoobe doon ma aha shacabka mareexaan bay rabaan inay laayaan labadan horgal mareexaanow iska qabto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wa khayr baraka dirjani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh